muwaadinkan Soomaaliyeed ayaa 2 maalin ka hor ku geeriyooday hospitaalka Kalbrema ee ku yaala magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. ilaa haatan ma jirto cid garanaysa heebta muwaadinkaasi. gudoomiyaha Save Somali Community Yusuf Umar oo booqday hospitaalka ayaa waxa uu ku guuleystay in meedkaasi uu ka soo saaro halkaasi isla markaana uu ku wareejiyo golaha muslimiinta ee dalka Koonfur Afrika. Mukhtaar Ciise Maxamed waa muwaadin Soomaaliyeed oo ku geeriyooday isbitaalkan Kalbrema 2 maalin ka hor. qolada isbitaalka ayaa nagu soo wargeliyeen muwaadinkaas Soomaaliyeed inuu ku geeriyooday. ilaa intaas waxaan raadinaynay dad axsaab amba ahal ilaa haddana ma hayno cid garanayso. waxaan go'aansanay marka maadaama uu meed yahay 2 maalin oo isbitaalka yaallo wixii saacadan ka dambeeyo inaan iska aasno. qof kasta oo Soomaaliyeed oo muuqaalkan daawato amba aqoonsata ninkaas magaciisa waxaan ka codsanaynaa inay ahalkii kale ay gaarsiiso haddii nala soo xiriiri kartana ay nala soo xiriirto. waa mahadsantihiin. ma ahan markii ugu horeysay oo qof Soomaaliyeed oo sidan oo kale uu geeriyoodo hospitaalka isla markaana la garan waayo ehl ahaan iyo halka uu ka soo jeedo qofkaasi. Cabdikariin Mursal, telefishinka caalamiga Universal, Cape Town.